markaan dalal badan la kulmay su'aalihii ugu badnaa oo soo waajahay waxay ka mid ahayd in madaxdeennu aysan wadanin baasaboorka aan ka hadlaayo marka waxaan ku qasbanaanay marka su'aalahaas dhinacyo kale inaan uga jawaabno oo ka xalino kolley madaxda dalkana wada hadalkaas wuu socdaa in arrinta xal laga gaaro oo si baasaboorku u yeesho micno iyo qiimo u yeesho in qofka Soomaaliga ah ee madaxda ah ee officialka ah inuu baasaboorka Soomaaliga qaato uu ku shaqeeyo marka shaqada dawladda uu hayo arrinta wada hadalkeedu way socotaa waan ku xaqiijinayaa inay tahay caqabadaha baasaboorka haysto mid ka mid ah ayaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waliba dhibka ugu badan wuxuu yimaadaa marka su'aasha la weydiiyo dadka madaxda ah marka la weydiiyo oo dalalka kale ay weydiiyaan jawaabaha ay ka bixiyaan jawaabo aad noo xoojinaya ma ahan oo markii waa inuu qanciyaa baasaboorkii jawaabta uu bixinayo waa inuu dadku la hadlayo qanciyo maadaama baasaboorka Soomaaliya wadan meelaha qaladaadka ugu badan oo ka dhaco waxa ku xaqiijinayaa dadka madaxda ah baasaboorka ajnabiga wata marka dalalka kale ay weydiiyaan maxaad baasaboorka ajnabiga u wadataa oo arrin Soomaaliyeed noogala hadlaysaa jawaabaha ay ka bixiyaan inaysan ahayn kuwa xoojinaya shaqada aan wadno oo ah inaan dib u noolayno aqoonsiga baasaboorka